Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa qaabka aad ugu kaydsan kartid Gmail-ka shay kasta, ha ahaado documents iyo sawirada iyo numberska. Waxaan ka bilaabeynaa qaabka numberska lagu kaydiyo Gmail-ka. Marka numberka save garaysa rabtid aad qortid, waxaad taabanaysaa add contacts kadibna create contacts. Marka ku qortid magaca aad doonaysid, meesha device ku qoranta ayaa waxaa ku bedelaysaa Gmail-ka aad doonaysid inaad ku save garaysatid numberka. Sidoo kale waxaa saaran kartaa qofka sawirkiisa haddaa haysatid, waxaad taabanaysaa bartaas kadibna waxaad sii taabanaysaa martaan kadibna waa soo dooranaysaa sawirka aad rabtid inaad saartid, waana yareyn kartaa waana weynaysan kartaa. Sidoo kale haddaa haysatid qofka Gmail-kiisa, waxaa ku qoraysaa barta idinkaga muuqato email-ka kadibna waa save garaysanaysaa. Number kasta oo aad ku save garaysid Gmail-ka wuu ku hayi doonaa wuuna ku xafidayaa. Haddii aad Gmail-ka aad ka shidina taleefan kale waa ka arki kartaa. Haddii aad Gmail sawiro ku kaydsanaysid, waxaad isticmaali kartaa Google Photos. Si oo sawirada kugu kaydiyo, waxaad furaysaa button-kan kadibna waxaad taabanaysaa confirm kadibna waxaad tegaysaa albums meesha kaga muuqato. Albumkii aad rabin in lagu kaydiyo sawiradiisa ma furaysid, kaliya waxaa furaysaa ka doonaysid in lagu kaydiyo. Google Photos waxa uu ku fiican yahay markasta oo aad gashid sawir cusub ama uu ku arko taleefankaaga sawir, isla markii asaga backup ku sameynayo kadibna waxa uu kugu kaydinayaa Gmail-ka. Sawirka in Gmail-ka lagu kaydiyo in kale waxaa ku kala ogaan kartaa haddii aad ku aragto meesha calaamada casaanka idinkaga muuqato falaar, waa ku dhufanaysaa kadib wuu ku kaydsamayaa. Markuu ku kaydsamo ma ku arkaysid falaar. qaybtan dambe waxaan uga hadli doonaa qaabka aad ugu kaydsan kartid documentska Gmail-ka sida shahaadooyinka, casharada jaamacadda iyo PowerPoint iyo wixii la mid ah. Waxaana isticmaalaysaa Google Drive, waxa uuna ku kaydin karaa sawirada, casharada iyo documentska. Marka wax ku kaydsanayso waxaad taabanaysaa ku darta kadibna waxaad sii taabanaysaa falaartaas upload kadibna waxaa ku dhufanaysaa saddexda alif. Waxaad sii gelaysaa maskaxda taleefanka. Haddii waxa aad doonaysid ay ku dhex jiraan folderka ku dhex jiro ayaa gelaysaa. Haddii banaanka ay ku yaalaanna waa ku dhufanaysaa oo kaliya. Hadda ani waxaa soo xarinayaa PowerPoint-gan. isla marka uu bilaabayaa inuu xifdiyo folderka aad soo gelisay ama waxa aad soo gelisay waxay ahaadaan. Haddaad doonaysid inaad abuurtid folder cusub, waxaad taabanaysaa ku darta kadibna waxaad taabanaysaa folder. Marka aad ku qortid magaca aad doonaysid, waxaad taabanaysaa create. waxa wareegsanaya waa PowerPoint-gii aan weli dhicin. Marka folder wax ku dhex kaydinayso waa gelaysaa, waxaad taabanaysaa ku darta kadibna upload aad taabanaysaa kadibna waxaad dooranaysaa waxa aad rabtid in lagu kaydiyo. haddii sawirtaas sawirka waa ku dhufanaysaa, wuu wareegsanayaa ilaa uu ka dhaco. hadda wuxuu ciyo la dhici lahayaa waxaa socdo PowerPoint-gii aan soo gelinay. hadda uu dhacay PowerPoint-gii, waxaa ku ogaan kartaa sawirka uu koreeyo ee PowerPoint-ga ayaa kor muuqanayo. sawirkii hadda ku laabaneynaa. sawirkan asagana sidoo kale waa uu dhacay. PowerPoint-ga hadday soo gelin oo nervous system ah, wuxuu iska yaalaa banaanka. folder hadda u sameeynaa. folderka markaa ku qortid magaca aad doonaysid, waxaad taabanaysaa grid kadibna waxaad tegaysaa PowerPoint-ga korkiisa, waa riixaysaa kadib kor waxaa kaaga soo baxaa move kadibna waxaa ku dhufanaysaa folderka aad rabtid inaad ku move garaysid. move aad taabanaysaa. saas ayuu kugu save garayseen folderka dhexdiisa. si aysan iskaga kaa dhex yaacin waxyaabaha aad soo gelinayso Google Drive-ka, waxaad sameynaysaa foldero aad ku shubaysid waxyaabo kala duwan. sawirada folder oo ku shubaysaa, casharadana folder, documentskana folder. waxaa jirto meel aad ka wada arki kartid waxyaabo kala duwan oo ku kala jiro foldero kala duwan, waana home-ka. wuxuu kuu suurtagal inaad wada aragtid hal mar waxyaabaha aad soo wada dhigto oo dhan. waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkan. waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideyn. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.